maxaa loola jeedaa videogan aad baa wada looga soo qaaday marka waa meel kasta waxaad ku arkaysaa videogan maxaa ula jeedaana nabadii nololay ujeedadu maxay tahay yani xasan sheekh dhibaatadii kasoo gaartay Addis Ababa anaga hore nooma soo gaarin sidaa miyaad u hadlaysaa nabadii nololay xasan sheekh wixii soo gaaro Soomahan wax umada Soomaaliyeed soo gaaray dawladnimadeeni wax soo gaaray Soomaan waayo xasan sheekh wuxuu matalaya umada Soomaaliyeed iyo dawladnimadoodu buu matalaya hadduu duulduulayo wuxuu la duulduulayo waa dawladnimadeeni go'aamkii umada Soomaaliyeed ee siisay ayuu wataa marka uu la duulduulayahay yani wixii soo gaarana wax umada Soomaaliyeed oo kaliya soo gaaray waxa umadu uga kala qaybinaysaana reerkeeni sida banul soo dhaway jireen reerkiina wax ma taqaanin yani waa runaantii oo fikir yar cajiib ah oo qaabtar sheekh maya taas waan ka diidnay hadana taageeraha wanaaga taageero oo wadaniyiinta ah anigoo kala qaadaynin taageerihii nabad iyo nolol kuwa hadda dawladda jirto xasan sheekh dhammaan anigoo aan kala qaadaynin inta wanaaga jecel inta wadaniyiinta ah inta videogan soo qaadatay waxay ula jeedaan tusaalo maxay ahayd sidaan oo kale la rabo in aad magaca iyo sumcadda Soomaaliya aad u ilaalisid maad sidaan oo kale samaysid xasan sheekh oo maad ku yidayatid maad damiir isu yeeshid maxay ahayd iska dhigtid nin mas'uul ah oo wadan dhan matalo buubka iyo meel walba aad taagantahay ma iska deysid ma isu yeeshid sharaf oo dhulka aad iska qaadid Soomaali hore u tiri hadii la dhimanayo dhareerka waa la iska duwaa ma aha inaad iska hadaadood meel walba taagnaato tusaale waaye ku day Buntland hadaa maqli jirtay ku day farmaajo ay naga tahay ku day nabad iyo nolol ay naga tahay nabad iyo nololna sidii aan ila tahay qabiil ma lahan reer ma kala lahan Soomaali oo dhan isku jirto waaye inta farmaajo taageerto waa Soomaali oo dhan isku jirto inta taageeri jirtay inta hadda xasan sheekh wadato oo taageertana waa Soomaali oo isku jirto reer kala lahaynin marka dhamaan isku soo duub Soomaali oo dhan waxaan noo dan ah wanaaga sharafteena inaan dhowrano wadankeena aan nabadeysano annaga aan noqono dad ay isku kalsoon oo mar walba ajnabi daba socdo ama daba ordo oo danahooda ku seego marka xasan sheekh waxaan leenahay dhulka iska qaad annagana naga qaad hadaan Soomaalinaha magaca Soomaaliyeed kor u qaad insha Allah marka Soomaali hadaa tiin adinkana dhinaca xunaad wax ka eegtiin dhinaca fiican ha laga eego insha Allah